السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته وشماركم محمد علي مدح برنامج كون كابيتال نتورك. اللهم صل على سيدنا محمد. waxaan doonaynaa kaar Swiss franc signal ah inaan isla wadaagno waxa weeyaan tayligu wuxuu sameeyay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad resistance buu joogaa tayligu anyway haddaan imika 4 hour ka eego oo kale kaadi 4 hour ka kale haddaan eego waxaad moodaa in uu trend line ka jabiyay retest ku samaynayo dadna oo halka ka sii soconayo waayahay 1 hour laftirkiisa haddaan eegno 1 hour laftirkiisa haddaan eegno wuxuu sameeyay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad low ka hooseeya ayuu sameeyay marka waxaan doonaynaa inuu halka hoos uga sii socdo haddii technical banu ku qiyaas qaadanayna inagu fundamentalka kulliba odigii traumada jimciye waa kii odigii hadaltada suuqa waa kii waalay yiri China waxaan cashuur tan ku korinaya iyadoo suuqu bariyaha filayay inay waan ay labadooda isu dhow yihiin anyway waxa weeyaan waxaan yeelaynaa card Swiss franc short baynu gelaynaa price at market price baynu ku gelaynaa 0.7569 bu price ku maraya stop loss ka waxaan dhigaynaa meelaha around meelahaasaan dhigaynaa dhowr waxaan dhigaynaa meelaha xayga u dambeeyay baan dhiganaynaa adigu 0.7618 take profit kana waxaan dhiganaynaa ka u horeeyo waxaan dhiganaynaa meelaha 0.75 adigu 35 ba ka labaadna waxaan iska dhiganaynaa 0.75 adigu anyway 0.7505 ba andagano card Swiss franc short ba loo galayaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxa weeyaan waa signal short ba loo galayaa stop loss ka iyadoo la dhiganayo 0.7618 take profit ka koowaad 0.7535 take profit ka labaad 0.7505 asxaabta Ramadaan Kariim intaasaan kusoo koobi lahaa oo shamarkan waxaan cadaalad leh Ramadaan Kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh